bal malayso adigoo basaaran oo iska socda habeenimo saq dhexe waliba saacadu ay marayso 12 habeenimo aadna doonaysid inaad gurigaaga u hooyato haddii baska ay kula soo fulaan shakhsiyaad aan la aqoonin wajigooda marka xitaa aad wajigooda fiiriso cabsi kugu abuurayo sheekadan ayaa waxa ay ka dhacday wadanka Shiinaha gaar ahaan magaalada Beijing baskan oo nambarkiisa ahaa 375 ayaa waxa uu ka dhaqaaqay boosteejo ku taalo isla magaaladaasi isaga oo ku sii jeeday mid tan ka yara fog oo uu doonayay dad rakaaba inuu halkaas geeyo baskanina wuxuu ahaa baskii ugu dambeeyay ee dhaqaaqo yacni dadkani haddii uu geeyo وماشي اي ربين وجيو وصون قنايا دib dambe uma noqonayo uma shaqeynayo caadi ayaa loo xariinay baska rakaabkiisa harna xilligaasi waxay ahaayeen dad yar oo fara ku tiris ah xitaa baskii muusan buuxsamin waa habeen saq dhexe baskii isaga oo wada dhexdeeda iska socdo darawalkii ayaa mar kaliya wuxuu arkay laba nin oo taagan wadada dhexdeeda markii uu soo gaarayna intuu ilinkii ka furay ayay soo galeen darawalkii intaysan nimankii soo korin markii uu wajiyadooda arkay aad ayuu u cabsaday isaga kaliya muusan cabsanin xitaa dadkii baska saarnaa ayaa aad u argagaxay iyadoo sidii loo cabsanayo oo la argagaxsan yahay ayuu baskii dhaqaaqay nimankiina ay saaran yihiin haddaba la yaabku wuxuu noqday nimankani baska soo raacay madada caadi ay ahaayeen mise maya maxayse dadkii rakaabka ee baska saarnaa iyo darawalkiiba u baqeen maxaa dhacay markaa ka dambe waxaan doonayaa inaan muuqaalkani dhexdiisa kugu sheego sheekadani argagaxa badan ee ka dhacday wadanka Shiinaha balse inta aan sheekada bilaabin muuqaalkeenana aan hore u sii galin haddii aad kanaalkani ama YouTube channelkani aad ku cusub tahay waxaan ku soo gudbinaa sheekooyinka argagax leh kuwa qarsoodiga iyo dambiyada haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena sheekadani waxay kamid tahay sheekooyinkii ugu cabsida badnaa ee soo mara wadanka China qisadana waxa ay ku bilaabanaysaa sidaan hore idin kugu sheegay magaalada Beijing ay ka bilaabanaysaa ee wadanka Shiinaha waxayna dhacday bishii 11aad ee 1995 inkastoo aysan dhaweyn waqtigaas ayuu baskani waxa uu ka dhaqaaqay booseejo ku taalay magaaladaasi ama bus station sida u taqaanaba baska waa baska dadweynaha magaalada kama baxo kaliya wuxuu qaadaa dadka magaalada dhexdeeda yacni xaafadaha magaalada ku yaalo ayuu dadka u kala gooshaa u geegeeyaa wuxuuna ka dhaqaaqay booseejadani lagu magacaabo Yuan Ning Yuan magacadka wuxuuna ahaa baska ugu dambeeyay ee ka baxa booseejadaasi ama bus stationkani yacni mid kaleba kamuusan dambeynin sababtoo ah waa xilli saq dhexe oo habeen ah oo saacadu ay marayso 12 habeenimo waxaana dhow xilligii uu istaagi lahaa baskan nambarkiisa waxa uu ahaa 375 haddaba baskii meeshii booseejada ahayd ayuu ka soo baxay asaga oo faaruq ah يعني wuxuu doonayay dadka inuu ka sii qaado station yar yar ee wadada dhexdeeda ku yaala kadib markii uu dadka geeyana meeshii u socday uu tagana dib ayuu meeshiisa ugu soo noqonayaa dib waxaana loo shaqo gelinayaa 8 subaxnimo haddaba baskii waa uu soo dhaqaaqay waxa saaran oo kaliya darawalka iyo gabar caawinayso oo la doonayay inay dadka baska saaran ay kala nidaamiso tigidadana ay siiso si lacagta ay uga aruuriso waxyar markii uu socday ayaa waxa uu istaagay bus stationka ay dadka ka raacaan waxaana baskii soo koray 3 qof laba waxay ahaayeen